oo loo yaqaanay munaxidigta in jannatul firdaws acla uu ka waraabiyo oo loo yaqaanay munaxidigta in jannatul firdaws acla uu ka waraabiyo waa geeri argagax leh taas oo ku timaaday walaasheen munaxidigta. haddaba sidee ay u geeriyootay gabadhan oo la qorsheynayay inay dhowaan ka qayb gali lahayd show ka dhacay ciidda magaalada Muqdisho? haddaba gabadhan maxay tahay sababta ka dambaysa inay geeriyooto iyada oo waliba loogu talagalay in showgaas weyn ay ka qayb gasho? maxay ahayd shakhsiyadeedii? taariikh nololeedkeeda oo kooban iyo xogo ku aadan qaabka ay u xanuunsatay ayaan kula wadaagi doonaa. muuqaalo iyo sidoo kale codod ay soo duubeen dadkii qaraabada iyo asxaabta la ahaa ayaan halkan kugula wadaagi doonaa. hase yeeshee daawade inta aanan kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu faafo una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed. sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya. haddaba waxay ahayd geeri argagax leh taas oo qof kasta oo Soomaaliyeed ee maqlay naxdin gelisay maadaama marxumadan oo lagu magacaabo munaxidigta ay ahayd gabar dhowaan loo qorsheynayay in ay ka qayb gasho show ka dhici lahaa magaalada Muqdisho. haddaba gabar ay saaxiib dhow ahaayeen taas oo baraha bulshada ayaa muuqaal ay soo dhigtay baraha bulshada waxay tacsi u dirtay dhammaan qaraabadeedii waxayna ka hadlaysaa shakhsiyadii Muno. bal haddaba aynu isla dhageysano codka gabadhan. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. إلهي وحن أقبرينا منى الظاهر ولو يقاني منحدقت إن جنة الفردوس أعلى وكورابيو وبالرمضان بالخير بدن أي لمطي الله سبحانه وتعالى وحن أقبرينا إن أقبرك أو إفتيميو سؤاش آخرنا أولي وارد كد iyo eheladeedana waxaan ilaahay uga baryaynaa iyo ummadda Soomaaliyeed in uu samir jamiil ah ilaahay inuu naga wada siiyo iyadana uu qabriga u nuuriyo iyada iyo inta muslimiin ah oo dhimatay oo dhan. run ahaantii bishii Ramadaan maalintii 27aad ayaa lagu jira qof kasta oo hadda inaga kamid ah in aan dhamaysanayno ma ogin geeridu inta ay noo soo jirto qofna garan maayo balse ilaahay waxaan ka baryayaa qof kasta oo muslim ah oo dhinta inuu jannatul firdaws acla ilaahay ugu bishaareeyo. waxaan ilaahay weydiisanayaa ehelkeena waaridkeen walaalaheen qof kasta oo qof ka dhintay oo muslim ah ilaahay inuu jannatul firdaws ugu bishaareeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa waa bil Ramadaan maalmaheedii ugu dambeeyay oo khayrka badnaa in ilaahay qof kasta naxariistii janna uu siiyo. gabadhan walaasheen ugu dambeysay Munana ilaahay uu jannatul firdaws uu ka waraabiyo waaridkeen iyo walaalaheen iyo ehelkeen iyo ummadda islaamkana qabriga uu wada nooriyo baa ilaahay ka baryaa. waxaan rajaynayaa idinka dhan inaad aamiin wada oran doontaan isuna ducayn doono ilaahay idinkiis qof kastana dambi dhaaf aan ilaahay u weydiin doono dambigoodii iyo dambiga waaridkooda qof kasta ilaahay ha dhaafo. marka xiga waxaan tacsi gaar ah ugu dirayaa laakahbeediyo baro Cimraan oo u ah gabadha dhimatay Muna abti u ah aadna uga tiiraayaysan run ahaantii geerida ku timi gabadhaasi oo abtiga u yahay. waxaan leenahay ilaahayga samir iyo iimaan jamiil ah ha idinka wada siiyo dhammaantiinba sidaan hore u soo sheegnay qalbigana ha idin qaboojiyo ducada islaamka iyo ducada aad u ducaynaysaan oo dhanna ilaahayga ha u aqbalo. sidoo kale gabadhan abtigeed oo ah shakhsi YouTuber ah laguna magacaabo Imraan Khan ayaa si dareen leh arrintan uga soo hadlay. waxaana sheegay ilaa iyo xanuunkeedii inay gabadhani la soo socodsiiday qaabkii ay ahayd. bal haddaba isna aynu isla daawano muuqaalkiisa qaabka tiiraanyada leh uga hadlay geerida gabadhii oo abtiga u ah ee munaxidigta. oo aan anigu ugu horeeyo oo aan ahayd gabadhaydii ilaahay ha u naxariisto walaashay baa dhashay ilaahay ha u naxariisto gaar ahaan walaashay Jawaahir ilaahay ha ka siiyo samir iyo iimaan iyo carruurteeda dhammaan iyo dhammaan ehelka oo dhan. waxa weeye waa geeri xanuun badan runtii anigana si gaara ii taabanaysa. aad iyo aad baan runtii uga xanuunsaday sababtoo ah qof ehelkaa ah oo aadan macnaha xanuun ku ogeyn
wax xanuuna ku ogeyn oo lagu yiri wuu dhintay waad dareemi kartaan macnaha inta ay la eg tahay xanuunkeedu runtii wallaahi in badan oo dadka ka mid ah waxay ku noqotay macnaha waa laba geeriyaad weeye sababtoo ah qofku markii uu xanuunsado oo maaragtay runtii isagoo xanuunsado muddo ugu dul xanuunsado waa laga samri karaa qolada showga Ismaaciil Aarka iyo way ku jirtay way caafimaad qabtay wax ay qabteen ma lahan gabar walaashay aan la hadlayay waxay igu tiri xalay bay ila hadashay waxay igu tiri habeen horaan meel xaflad ku lahayno markaan ka imi madaxan xoogaa layga qabtay ilaa hadda habaryaray waan xanuunsanahay bay ku tiri marka hadde waxa weeye qof kastiba ma oga inta loo soo jiro gooruu dhimanayana ma oga marka Muno runtii waxaan ka codsanayaa heesaheeda iyo inaan la soo qaadan oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay iska dayso qofku haddii uu dhinto in la iska daya fiican waliba waa maalin Ramadaan waa 27 ilaahay teedii baa soo gashay xilligeedii bay dhimatay waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan hanaga siiyo hadalka ma doonayo inaan badiyo laakiin kaliya waxaan rabaa inaad iigu ducaysaan walaalayaalow allah u naxariisto jannatu firdawsa ilaahay ka waraabiyo mar dhaweyd bay dhimatay sakaraadkii wuu dhaafay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay su-aasha u fududeeyo qabrigana ilaahay u waasiciyo dembigeediina in ilaahay dhaafo baan ilaahay uga baryaynaa idinkuna u duceeyo oo aamiin dhah wax kale muuqaalkan uma soo duubin ama hadaf kale uma soo duubin waxa aan u duubay oo keliya wax weeye waa maalin Ramadaan dadku way sooman yihiin inta muuqaalkaygani uu soo gaaro keliya ujeedkaygu wuxuu ahaa in aan idinla wadaago geeridaas xanuunka badan oo nagu timi in aad ila wadaagtaan oo maaragtay inaan idinla wadaago si aad ugu ducaysaan gabadhaas ilaahay dembigeeda ha dhaafo ilaahayna su-aasha qabriga ha u sahlo oo ilaahay ha u fududeeyo walaalayaal mar kalean kusoo celinayaa xanuun macnaha hayay isku soo wada duub geeridan ayaa waxa ay noqotay mid gilgashay guud ahaan baraha bulshada qof kasta waxay ku abuurtay naxdin maadaama gabadhan dhowaan dhimatay la qorsheynayay inay ka qayb gali lahayd show ka dhacaya magaalada Muqdisho haddaba waxaynu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto waxay dhimatay bil Ramadaan oo barakaysan waxaana leeyahay ilaahay dambi dhaaf uga dhigo muslimiintana waxaan leeyahay u soo duceeya gabadhan in Allah subhanahu wa ta'ala uu jannadiisa ka waraabiyo inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida ay nabad galiyo mahadsanidin